warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaalamaanta markale dib kaga qarxay deegaanka Guumaysi gobolka Sool halkaas ay isku farasaareen ciidamo kala taabacsan maamulada SSC Qaatumo iyo Somaliland xogaan halkaas ka helayna ayaa sheegaya in dagaalkan oo qaatay saacado badan uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac asaatee ma jirtay si rasmi ah xaqiijin karta tirada dhimashada iyo dhaawaca soo kala gaaray labada dhinac maadaama dagaalku wali halkaas ka socdo saacadii la soo dhaafay deegaanadaasi waxa ka taagnaa xiisad coladeed oo u dhaxaysa maamulada SSC Qaatumo iyo Somaliland ayagoona dhowr jeer oo halkaas ku dhaxmaray dagaal aad u xoogan xogaha ayaa intaas ku daraya in labada dhinac uu gaarayo gurmadiye xoogan oo ka kala imanaya deegaanada SSC Qaatumo iyo kuwa Somaliland kuwaas oo doonaya inay ku biiraan dagaalka maanta markale dib kaga qarxay deegaanka Guumaysi gobolka Sool labada maamul ayaa isku haya dhul daaqsimeed halkaas ku yaala oo muddo fara badan oo murankiisa soo taagnaa waxaana fashilmay wada hadaladii nabadeed ay wadeen ismada SSC Qaatumo iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland kuwaas ay doonayeen inay ku soo afjaraan colaadan ka taagan deegaanka Guumaysi gobolka Sool SSC Qaatumo ayaa uu hore u sheegtay in dhammaanba deegaanada Sool iyo Sanaag ay ka tirsan yihiin maamulka kumeelgaarka SSC Qaatumo halka Somaliland ay dhankeeda sheeganayso in deegaanadaasi ayada ay hoos tagaan ku dagaalamaya deegaanka Guumaysi gobolka Sool ayaa cadii la soo dhaafay waxay isku horfadhiyeen deegaanadaasi ayadana ugu dambeyntii maanta halkaas dagaal ku dhaxmaray ma jirto wax war ah ka soo baxay maamulka Somaliland iyo SSC Qaatumo ku aadan dagaalkan maanta markale dib kaga qarxay deegaanka Guumaysi dadka deegaanka ayaa sheegaya in xaaladdu iminka ay tahay mid aad u cakaran